ونبينا الله صلوات ربي وسلامه عليه نبا قواميي إنو عاو صدقات لبحو صدقاتي بو قاضي قرأوا وحل مدو واسقرينيا صدقاتي سربا إني نقطة مد خالصة مدان عيد الله أغين الله موياني تأتنا قفت مرامي المريسوق عنتك قليي ورنت إيدي أما عيدك لأغاتي صبحي وحلقو شاكيستي هبلا يدي أنوانك سني حميد شركة ذاك قنعسان جرتي أيا قفها أكسن لمودي صدقتنا والسية وركي بالسلة حولي إساقي بوركي سوق علي إلهي واكوكم مها سيدي آدادوكو دونتو أيوم بعد عيا هبين كي دمبولا كعلي وعاونا وإنام بحيا هبين كي نوحو لقو ذي حوله وبحني هبين كان وحو لكل مي نين مال قبينا أيوك عنتك قليه سلقو قاديبا صبحي والله هذا هيا ورنيكي هبل حولها لعير اي سقبتيسو ايا سقيسي ايا wax loogu darayo way suba ku shuba noqdayo waa ninkiina xoolaha maanta loogu daray isna alhamdulillah ala kulli hal ilaahay oo taana wad ku maasantahay waa go'aankaaga anigu shaqo kuma lihi waa qadaa iyo qadar balan hadana ku celiyo habeenkii kale hadana qaaday habeenkaana mituuga oo ku sii socoya tuugadii iyo ka soo socoya mid ay tahayba habeenkaana wuxuu u dhiibay mituuga ayuu gacanta ka geliyay sidii baa loogu sheekaystay waan xalayna kaynu ogay ee ummadaba yareeyay ee xoolihii ka gurtay ayaa qof hagaagsan la moodo sadaqad loo dhiibay intiiba uu isku daro wuxuu ilaahayow adaa ku mahadsan hadday gabadh xun u gashay iyo hadday tuugu gashay iyo hadday qani u gashayba intaba ilaahay waada go'aankeeda leh markaasa riyal loogu yimi manaam xaqa ayaa loogu yimi markaasa lagu yiri meel xun kaama marin sadaqadaadii way hirgasho waa lagu aqbalay hadday tahay qofka dumar ee xun waxa laga yaabaa inay sadaqadaadaaba kaga joogsato xumaantii inay balaayada ay ku jirtay barakada xoolahan sadaqada ee ilaahay dartii looga jeedaa inay kaba hakisaa laga yaaba marka sadaqadiina waa lagu aqbalay midhana inay keentaa laga yaabo ama qofka qaniga ah ee maalqabeenka ahaa inuu isna ku taamila qaataa laga yaaba oo war dunida waxa ku nool rag wax bixiya shaw asaaga way bixiya shaw aakhiray ula baxa bahashanaad kaydinayso ee dusha ka salaaxayso ee maalin baynta ku korodho ku fikirayso war dhinacaasa laga wada janna lagu iibsadaa inuu ku fikiro ayaa laga yaabaa oo isna uu bixiyo oo aad noqoto mid dariiq fiican u jideeyay oo uu ka daba maro oo ajarkiisa yeelatid ka tuugaana waxa laga yaabaa inuu tuugadaba kaga nasto oo xoolahana tiisay ilaahay kaga baqdo oo ka joogsado dhacdada noocaasa النبي كريم كي صلوات ربي وسلامه عليه إنه شيء وحين كلا بحين دور الريموت أرنك كوباد وجهر يا وحويه إلهي سبحانه وتعالى قانك وردو يسدو أدونك ومعمله يسدو ودقابا ومهد إلهي والله مهديا ويوحت يا أدون لله هي سيدا ربابو إلهي كو معموليا حكمت بانو كو معموليا adugu warka ma qabtid dhinaca ku wanaagsan garan maysid sida ogeed waa inaad mar walba tiraa alxamdulillah laakiin xadiisku wuxuu inoo sheegayaa laba nooc baad u xamdalaysanaysaa ama ilaahay u mahadinaysaa haddii wuxuu wax wanaagsan yahay waxaad odhanaysaa alxamdulillah alladii binicmatihi tatimmu saalihaat ilaaha nicmadiisa waxa wanaagsan ku dhammaystira ayaa mahad leh إلا وحنا سبب سوقاني وأدوق آد ماكتي سدا أوجد لبس صحابي أو إسرائيلي أو أبي سوا أي النبي سليمي يجوز قبصدي طلوا محيسكو هايستان وور عجيبة صحابي والدك أي صدق الله بحياة زائدة ليلة صدقتي مطبعين وقريو نين مالس كهر دم مساجدك oo duuduuban ayuu madaxa u galiyay
halkaa barkinta hoosteeda ayuu lacagtii u geliyey ninkiina markii uu toosay muu barkimadii qaaday lacag buu ku arkay iska qaatay wuxuu ogaaday in isaga loola jeedo aabbihii buu la tegey aabbo lacagtanaa lay siiyeeyo anoo hurdaa ayaa madaxa lay geliyey oday waa ku soo booday anigu ahaa adiga kumaan jeedin kan lacagta yaabba ilaahay baa isiiyo waa arsaaqade iiddaa may cid kalean ku waday aduu inankaygii baa tahay nafaqadaada iyo biilkaaga igu waajiba socon mayso waa inaad soo celisaa iyo nebiga inoo gee nebigii baa laysula tegaya nebigu wuxuu ku yidhi laka maa akhadta yaa macan wiilka macan baa laydhaa wixii aad qaadatay allah ku siiye qaado odayowna wixii aad niyootay baad leeday adna niyadaadaa ilaahay kuu qaaday waar adna arsaaqad baa ku soo gashay waydinkaasi kala shaqo taga marka cidday doonto gacanta ha u gashee haddiiba ay kaa baxday ma soo noqonayso niyadaadu hadday wacan tahay qodobka saddexaad walaalayaal wuxuu yahay qofkii sadaqadda bixiyey hadduu yar shakiyo hudha malaa meel wacan may marin waxaa loo sunneeyaa inuu ku celiyo waayo khayrunbaa u soo kordhay haddii labadaba la wada aqbalana wanaagsan oo wacan